banaanbax bileerin oo lahan ku horjeeday tacdiida bilaanto oo ku dhig magaalada Buuhoodle banaanbax bileerin oo ku dhig magaalada Buuhoodle iyo bahagawa qaabiyay habeenka kale magaalada Buuhoodle ardayda walkabaradaas magaaladaas banaanbaxan iyo balan ku horjeeday kufsi dilanka jeesidii gabartumay lama sano jar magaalada Gaalkacyo Aasho Ibraahim oo horeen wayba meel ku hadalay qaar kumid banaanbaxay dadka qaban qaabiyo oo suubiin maamulka Puntland oo ku codsadeen inta la horsheen cadaalada dadka ku dambeeyay falkaan taariikhda taganayna ku dhigin waxa dhici doonta inay gobolka ka bilaabato ay noqoto wax iska caadiya oo qofna ka jawaabin ama ka falcelin sidoo ka qaado banaanbaxyada dalkeena Soomaaliyeed ay ka bilaawno ay tusno dadkii falkaas geystay inaan arrinkoodii ka soo horjeedno ay sharafta ama tacadiga ay kula kacayaan walaashood hooyadooda habaryartood inay ka qaataan fadlan hadii damirkaagu nool yahay iska dhalinyaro oo iska reermiya islaantaas waxa la waxay ka timaaday xagga reermiga miyiga ka timiyada xaaboota waxay istaagay dhowr kule oo waxay istaagay kubadda ka yimi in islaanta aadu ama wax ku sameeyay ama kufsadaan islaantii markay qabsadeen ayaa mid kamid ah ayaa waxa ku jiray wiil kamid ah ay dhashay markii islaantii gartay muxuu sameeyay hooyadii inuu kufsadeen wiilashana waxay soo tageen inay islaanta kufsadaan laakiin waxay dhashay mid kamid ah sida darteed walaasha wada tahay walaasha gurigeena joogta tanad kufsanayso walaasha oo kale kufsiga waan gaynaa dumar baan nahay laakiin sida naloo galay ama inaan tahay 12 jirka loo galay si islaamnimada ku jirta maaha dawladda cusub waxaan ka codsanaynaa ee Puntland gaar ahaan uu ka yahay madaxweynaha Dani inay cadaalad hor keenaan Galmudug Aisha Ilyas waxaan leeyahay waad siqiirtay adduunka adiga raaxay ku hureen nimankaasi laakiin dawladaha waxaan ka codsanaynaa inay nimanka hor keenaan cadaaladda maadaama ay cadaaladda hor keenin ogaada siqiir kabiir nin kasta oo kacay uu ku kacaya dhaqanka iyo dhaqan xunba marka dawladaha waxaan ka codsanaynaa inay noo soo qabtaan nimanka kaga qaylisay waxaan aad uga xunnahay dhibaatada iyo tacadiga loo geysanayo hablaha Soomaaliyeed ama haweenka Soomaaliyeed haday tahay hooyo wax dhashay haday tahay gabadh haday tahay mid weyn waxaan ka codsanaynaa dhammaan in ay dhibaatada loo geysanayo cid kasta oo islaamka sheegata ama Soomaaliya ama dawladda ama waxgarada ama aqoonyahanada inay dhibaatada loo geysanayo haweenka Soomaaliyeed inay ka dhiidhiyaan oo ka kacaan mudooyinkan dambe ee guud ahaan dalka Soomaaliya oo basiiban ka hadalhaye kufsigii dhawaan uu ka dhig magaalada Gaalkacyo waana lanka jeesidii gabarjarta tumil ama sano jar ah iyo bulshada Soomaaliyeed suubiin codsadahayaan intii la horsheena cadaalad ku dambeeyay falkaas Ibraahim Calimo TV-ga caalamiga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo.